qalinjabinta jaamacadaydu waa isbuucan anna ma hayo wax shaqaa sidaad ogtiin Afrika shaqo raadinteeda ayaaba shaqadaada noqonaysa anna waxaan doonayaa intaayna dhicin qalinjabinteedu inaan shaqo degdega oo fududaan helo laakiin sidee suurtagal ku tahay inkasta oo shaqaale badan ay shaqadooda uga tagaan si ay u noqdaan YouTubers haddana sidaas oo ay tahay waxaan shaqo weydiisan doonaa konton ka mid ah shirkadaha ugu caansan Soomaalida waxaana ku sii sheegi doonaa in shirkadda Soomaalida ugu sareysa ay farinteeda arkeen igana soo jawaabeen waxaan ku bilaabayaa Astaan TV rabadaantii dhawada waxay la soo hadashay Astaan iyaga oo raba in loo qaado qasiido cusub kadib markii aan wada heshiinay ee aan qasiidadii u qaaday waxaan islahaa waxaad ka mid noqonaysaa shaqaalaha rasmiga balse maalintii aan qasiidada u qaaday kadib way soo ceyriyeen hanuunka kuwii ku jeesjeesiyo abaajahalba kufriga ku jabe mana garanaya sababta waxa laga yaabaa inay codkayga ka heli waayeen salaamu calaykum Astaan muhiim ma inaan isku sheego kullay codkayga waad garanaysaan waa Master Shash muddo ka soo wareegtay markii aad soo rideen kullay waxaad igu soo rideen waxay ahayd codkayga oo fool xuma imika codkayga ka soo sifeeyay waxaan soo cabay subag iyo wax kasto oo codka lagu sifeyn karo imika waxaan filayaa xataa inaan filmaanta idin codayn karo marka maadaama weegan ay qalin jabinteedii tahay sidoo kalena aan hayn wax shaqo waxa idin ka rabaa shaqo fadlan farinteeda marka aragtaan iga soo jawaaba aad baan idin salaamaya Hon Petroleum yaga cod ma duubayo fariin baan u qori doonaa assalaamu calaykum waxa experience mali laakiin kalsoonida iyo dadaalkayga ayaa boqolkiiba boqol ah fadlan shaqo degdeg ah ayaan idin ka rabaa sidaad aragtaan buu wiil yar baan wax khibrada mali iminku ma jaamacada soo dhameeyay laakiin waxaan khibrad aad u sareysa ka wataa technology YouTubeology waqti lumisology iyo waxyaabo kale oo badan morla hadii aad u baahan tihiin qof dharka idin xayeysiin kara xataa isagoo aamusan waa aniga awoodeeda waan lay Aposto malaha dumarku baa ka shaqeeyay Aposto waxaan noqon doonaa ninkii ugu horeeyay ee ka shaqeeya Aposto maalmihii la soo dhaafiyay wax skin care ma marsan sababtoo ah way iga dhamaadeen hadii aan skin care-kiina isticmaalo shaqo ma la socotaa talow fariintan ama message-kan u diray laba midba waan ka faa'iidi doonaa ama skin care free ayaan heli doonaa maadaama aan u xayeysiiyay laba ama shaqo rasmi ah ayaan ka heli doonaa labada mid bay noqon doontaa samtuna imkana waxaan la hadli doonaa berbera tuna ninka iskale ninkani male waxaan Instagram sidoo kale Facebook sidoo kale Snapchat laakiin se ka daba hari maayo maadaama aan shaqo rabo shaqadana aan daacad u hay waxaan kala hadli doonaa emailkiisa waxaan jeclaan lahaa qada kasta inaan ku kariyo waliba aan ka dhigo kalluunka dalka ee berbera tuna waxaan ahay chief sare waan iska kaftamaya xataa ma garanayo sida loo kariyo baasto isku dhex karaysa laakiinse waan baranayaa ha ay biqina waqal studio waxaan ahay abwaan dhamaystiran waxaan hayaa dhowr heesood oo xula fadlan fursadan ka faa'iideysta even haddii ay ii soo jawaabaanba waxay caawin doonaa ChatGPT isaga ayaan ereyada ka soo qori doonaa dabadeedna sidaas ayaan uga iibin doonaa intaa kadibna waxaan noqon doonaa abwaankooga khaaska ah tani waa business way tarasom waxaan idin hayaa fikrad aad tuugta casriga ah ee internetka aad kaga hortagi kartaan balse waa inaan noqdaa shaqaale rasmi ah haddaad fikradaas rabtaan fikradani maaha fikrad beena waa fikradan ka soo shaqeynay muddo 3 sano ah ma doonayo kaliya inay fikradda iga iibsadaan waxaan doonayaa sidoo kale inaan noqdo shaqaale igana iibsadaan waa laba faa'iido maadaama maalinta ka dambaysa tiknoolajiyadu ay kor u sii kacso haddana sidaas leeg tuugta tiknoolajiyadu iyaguna maalinta ka dambaysa way sii badanayaan sidaa daraadeed waa inaad update ahaataa Nuuruddin haddii aad raadinaysaan shaqaale si wanaagsan u jeegaraya ardayda timahooda diyaar baan idin ahay Nuuruddin shaqadaas ayaan ka codsan doonaa si aan fursad u siiyo ardayda ugana sii daayo ina Jabuutaawi waa milyaneer waa ninka kaliya qaadku kala xiran yahay maaha shirkado kaliya inaynu shaqo ka codsanno darawal gacanta u fadhido ayaan ahay ma ii shaqaalaysiin kartaa waalidaada mid kamid ah waxaan ku ballan qaadayaa inaan magtayda qaad ahaan kaaga sii cuno hormar xanuunsanaya ilaahu dambi dhaaf war maxaan idhi dhaweeye gaari ii iibiya fadlan gaarigu muxuu ahaatay shaqo simbow hortuma yaro waalanaynayo Swear real estate Swear inta badan guryuhu dhisaa sidoo kale dhulkana uu iibiya isagana waxaan ku oran doonaa dhisaan wanaagsan oo guriya oo aan horey looga dhisin Soomaalida dhexdeeda ayaan ku hayaa kasoo hadal fadlan
dahabshiil u qori mayno message yar oo caanteyn ah sababtoo ah siifiyada yaala dahabshiil waxay ka badan yihiin 10,000 hal muuqaal oo aan sameeyo ayaa saacado gudahood ku gaari karaya shirkadaas waxaan shirkadaas u samaynayaa xayisiis heer caalamiya oo indhaha caalamka soo jiita sidaad ogtihiin shirkadaas waxay bixisaa maalgelin haddii aad garan waxa weeye yani qof kastoo fikrad haysta oo aan lacagtii haysan ay sii maalgeliyaan hadhowna lacagtaas ay ka rarayaan 24 hours later. muuqaalkan dhammaadkiisa waxaad ku daawan doontaa xayisiiskii heer caalamiga ahaa ee aan u sameeyey dahabshiil laakiinse intaa waxaa ka horeysa shirkadihii aan u dirnay meesajada ayaa nooga soo jawaabay aan nooga soo jawaabay shirkadii ugu horeysay ee iga soo jawaabtay farinteeda waxay ahayd astaan waxay ii soo qoreen shaashow adigaaba lagugu kari waayey qasiidooyin kale ee rabadaantan isdiyaari wallaahi waa runtood rabadaantii aan qasiido u qaaday waxay ahayd rabadaantii dhaweyd maahay tii ka horeysay marka haddana rabadaantii dhaweyd bay la socdeen waxay igu dhahdeen soo diyaar ma tiide qasiidooyinkii baad qaadaysaa iga sii daayaan kulniyo waan ka dhacay sababtoo ah qasiidadii ugu horeysay markii aan soo saaray wallaahi hooyadii bay igu tiri iska daa sidaa daraaddeed waan ka hadhay hooyada waxaa loo sawiray uun online-tan qasiidooyinkii haddana ka yara dhex baxay fanaan noqdayba yaa kaloo noo soo jawaabay dii waqalna iguna waxay noo soo qoreen fanaan ma noqon kartaa abwaanin way buuxaanin waqal wuxuu taagan yahay fanaan shidan baan kaa dhigaya laakiin wanaad akhriya saxalisa allahayka allah nabiye maxamed anaa akhris ma xalin karo wallah waqal wuxuu rabaa inuu gud madow gurido isinka waxaad rabtaa in guriga laga heliyo sooma yaa waqalow nuurudiin iyaguna waxay noo soo qoreen anagoo wax shaqaah nagama banaana balse xaggan ka baadho walaal dabeedna waxay ii soo sheergareeyeen website-kii shaqooyinka laga baarinayay ee ahaa Somali Jobs waxa la idinku hor miyaa ma garanayo meelaha shaqooyinka laga raadsado anigu shaqadaasaan u xiisay qabay oo u ciil qabay maadaama aniga in badan la soo abuujiyo ma garanaysa oo timaha la iga ciyaari jiray anna waxaan rabay qaranka ka ciyaaro okay yaa kale noo soo jawaabay cidna saddexdaas oo kaliya taa noo soo jawaabay imaka laga bilaabo waxaan noqonayaa ganacsade sababtoo ah shaqo kale ma sii raadin karo waxa ugu horeeya ee aan soo saarayna waxa weeye waa cadar dhulkan horteeda ka muuqda waa carradii aan ku dhashay ku qoslay ku ooyey laakiin maalin maalmaha ka mid a waxaa timid abaartii ugu darnayd ee aan nabid arko toddobaad kadib dalagii waa gubtay xoolihii waa dhinteen waxaan arkayay dadkii deriskayga ahaa oo tegaya mid walbaaba isagoo leh xalkan nolol ma taallo mar kasta uu roobdo waxaan dareemi jiray in noloshoodu dib u bilaamayso laakiin sannado badan roob ma iman dhulkii waa qalalay rajadiina waa yaraatay waxaan rumaysnaa in shaqada adag keliya ay nolosha beddesho taageero la'aan maalin kasta waxaan soo toosaa anigoo aan haysan hal sabab oo aan dibadda ugu baxo nolol cusubi way jirtaa haddii aad rumaysan tahay hawalwelin beerteennii iyo dalageenniiba way soo noqon doonaan ma aanan garan sababta laakiin hadalladaas qalbigayga waa ay gilgileen waxaan aaminsanaa mar uun in riyadaasi noo rumoobi doonto balse riyo bilaa fursadahay si fudud ayay u baabi'i kartaa laakiin maxaa dhacaya hadday suurtagal tahay in riyooyinkaasi ay xaqiiqo noqdaan haddii la helo taageero yar moogtahay in abka dahab balaas aad ka dhex codsan karto inay maalgelin kuu samayso aynu codsanno maalgelinta si aynu u soo celinno beerteennii iyo dalageennii aynu buxbuxinno mikro dahab waxay ku haysaa awoodda aad ku maalgelin karto mustaqbalkaaga taabo oo soco ma jiro foom buuxin dhib badan oo wax kastaa way sahlan yihiin waqti kooban gudihiisa iyo codsasho fudud kadib riyadii axmed waxa ay noqotay mid la taaban karo haddii aad leedahay riyo balse aanad helin fursad aad ku xaqiijiso waxaa jira waddo lagu gaadho guusha mikro dahab mustaqbalku waxa uu ku jiraa gacmahaaga si lagugu maalgeliyo riyooyinkaaga maanta la soo dega abka dahab balaas oo ku xooji mustaqbalkaaga mikro dahab ka sheekaya xaysiiskani miyuuna heer caalami ahayn muuqaalkan like saar sidoo dad badan u gaaro sidoo kalena subscribe saar sidoo kalena commentiga waxaad ku soo qortaa muuqaalkan xaysiiska 10kiiba inta aad siin lahayd